maalintii gudoomiyihii aniga iga horeeyay la qarxiyay oo dad badan oo ehelkayga ah isku meel lagu laayay jamcadii ku xigtay xadbeed waxaan dhageystay masaajidkii ugu xigay masaajidka wadaadka wuxuu ka leeyahay tarbiyada awlaad khudbadana waxaa loogu talagalay asbuuca waxa soo dhaca in lagu sheego oo lagu saxo ummadda culimada waxaan u sheegayaa masaajidda kaliya ku tukan maysa anana banaanka joogmay ama waa xirayna ama shabaab wala wada dirayna ayaan dhaway masaajid baa nin lagu hordilay wadaadkii iimaanka ah baa la xiray odayaashii oo dhan baa yimid waa layla soo hadlay wadaadkii hal la sii daayay wadaadkii taliyihii qaybtan waxaan ku yiri wadaadka soo daa baaridna ha gelina culimadii iyo odayaashii baan qado u sameeyay waxaan ku yiri culimo Allah soo masaajidna waxa ka hadlaysan aniga waxba iguma fadhiyo adinkiisa ay dhiba kumana tukado ama aan masaajidkooda tukano oo shabaab dagaalku waa diin bay wadaan been ahayd diin taxriifka ka sax ama masaajidda waa xirxirayna kulligeena guryaha ku tukanayna sheekhi halkan ka dhaqaaqay shabaab waxay dadka ku laayeen waa diin magacoodana ma u soo qaadin shabaab waa daalimiin ma oran shabaab diin ma haystaan ma oran magacooda ma soo qaadin mana ah kaligiisa waa culimada oo dhan haddaan marka wadaadada iyo bulshada iyo dadku ay banaanka isu taagin shabaab waa cadow aan la oran oo guryaha lagu qarsado oo la aamuso qof walba waa dilaya annaga hadda waxaa noo xiran waa shabaab badan baa noo xiran waxaan haynaa liis wallaahi dadka qaarkiis anaa ka cajabay liibkooda ay leyn lahaayeen qaarna waxba ku fadhina cimaamadooda isaga duubsado dariiqa maraya baa ku jira kulligiin marka liis baa ku jirtaan maalintaad dhimataan baa lagugu dulbarooranayaa ilaa ka hor sheegi weydee waxaa la rabaa marka maantay gaalkacyo iyo mudug fursad ay haysataa waxay tahay haddee halkan anugu inaan munaasabadan imaado oon ka khudbeeyo oo aan jeclaysto in galmudug ay baraarto aan jeclaysto oo aan dadka reer galmudug dadka ugu jeclaysto waa horumar ra'iisul wasaaraha xogaa baan xalal la fariistay waxaan kala hadlay gobolka mudug dhinaca galmudug inuu wax ka qabto oo uu istaago oo galmudug dhiso baan kala hadlay Puntland kala ma hadlin sababtu waxa weeye xanuunka ugu badan wuxuu iga hayaa xagga galmudug oo degmooyin laga haysto inta degmooyinka galmudug la haystana Puntland nabad ahaan mayso Soomaaliya nabad ahaan mayso madaxda meesha timid waxa la rabaa iyo dhamaanteen iyo shacabba inaan u istaagno cadawga dad qalatada ah oo aynan ka dhuuman intii ka dhuumaneysana laaye intaan ka dhuumanayna waa laaye waxa la rabaa inaynu isu taagno in aynu dadkaas cadawga oo dadkeena xasuuqaya inaan tacsida inta iska dayno banaanka in cadawga aan ka sheego